halkan waa channelka Sharfinho TV. haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar taabo gambareelka si warbixin walba. kan waa 14 Oktoobar ee kiisa Zobe. sababta magaca 14 Oktoobar lagu magac daray ayaa ah maalin Sabti ah, taariikhdu ay ku beegnayd 14 Oktoobar 2017, saacaduna ay ahayd 3:30 daqiiqo ayaa waxaa guud ahaanba isbedelay jawiga goobtan. waxaana dhacay qarax ugu saameynta badnaa Soomaaliya muddo, taas oo noqotay in cid waliba ay u qaadato goobtuu ku sugan yahay qaraxa uu ka dhacay. magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba meelaha ka agdhow ayaa aad looga maqlayay sabaxanka qaraxaasi. haddaba sanado kadib maxaa laga dhaxlay musiibadii qaraxii Zobe? muddo sanadaha ayaa ka soo wareegatay tan iyo markii uu dhacay qaraxii dadka badan ay ku dhinteen ka 14 Oktoobar ka dhacay isgoyska Zobe ee magaalada Muqdisho. halka uu qaraxu ka dhacaya waddo laamiya waxaana ku hareeraysan goobo ganacsi. sidoo kale waxaa ku yaal isgoys axmed badan oo gawaarida laga raro, waxayna ka agdhow dukaamo oo ay dadku ku ganacsadaan gudihiisa iyo dibaddiisaba. marka laga reebo maalmaha ciidamada ammaanka Soomaaliya ay xiraan waddadaasi, inta kale aad ayaa loo buux dhaafiyaa, mar walbana mashquulkeeda ayaa badan. waxay ahayd maalin Sabti ah, saacaduna waxay dhex maqorinaysay 9 galabnimo. mar qura waxaa isbedelay jawiga guud ee Muqdisho markii gaari xamuul ah uu isku qarxiyay isgoyska Zobe ee magaalada Muqdisho oo boqolaal qof ay dhex joogtay xiliga. dhimashada iyo dhaawaca weli si rasmi ah looma oga, balse in ka badan 500 qof ayaa ku dhimatay halka dhaawac uu ka badan yahay 1,000 qof oo kale. waxyaabaha laga dhaxlay qaraxaasi waxaa ka mid ah in Soomaalida isku gurmatay oo shacabka ku nool gobollada kala duwan ee dalka iyo kuwa ku nool Muqdisho ay u gurmadeen dadkii dhibanayaasha ahaa ee qaraxaasi waxyeelada ka soo gaartay. marka laga soo tago raashin iyo daawo la gaarsiiyo dadkii Zobe wax ku noqday, waxaa sidoo kale ay heleen deeq dhiigga uga timid madaxda dalka iyo qaybaha kala duwan ee shacabka. dowladda dhowra ayaa Soomaaliya u soo gurmaday, qaarkood shacabkii dhaawacmay ayay u dabaabuleen dalalkooda sida Turkiga iyo Qatar, halka dalalka dariska leh ee Soomaaliya ay deeqdaabaha soo gaarsiiyeen magaalada Muqdisho. toddobaad kadib 5 qof oo lagu tuhmayo inay ku lug leeyihiin qaraxaasi ayaa la xukumay, oo mid ka mid ah uu maqnaa, waxaana dil toogasho lagu xukumay mid ka mid ah shakhsiyaadkaasi, halka kuwa kale ee xabsi ciidan iyo sanado lagu kala xukumay. hadda oo qarax ay ka soo wareegtay muddo 2 sano ah, dowladda Soomaaliya waxay u samaysay taalo oo looga dhisay isgoyska Zobe si ay u noqoto xusuus qaran. waxaase muuqata in dowladdu ay ka gaabisay inay ilgooniga ku eegto dadka ee musiibadaasi u geysatay dhibaato aan caadi ahayn. waa taariikh lama ilaabaana oo Soomaalida gabi ahaantoodba ku noqotay maanta oo kale 14 Oktoobar. intii ku dhimatay, intii ku dhaawacantay Soomaalida meel walba ay dunida ka joogaan, waxa ay habada isu marsiinayaan duco, waxna leeyihiin Allah u naxariisto kuwii dhintay, intii dhaawacantayna Allah u bogdhaayo. waxaana noqon doontaa mid lagu tusaale qaato waa sida qaarkood dadka ay qabaan ee ku dhaqan magaalada Muqdisho.